السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن وذا سلامينا أخياري دمانتين سو ذا دواذا كسو دواذا بودكاستيجينا حيدت مقعيقوا نعيمة magacayga waa Maryam. ما شاء الله مانتا موضوع aan kusoo qaadan doono wuxuu aad iyo aad diirad gaar ahaaneed u saari doonaa saameynta baraha bulshada dhalinyarada iyo caruurta. waan falanqeyn doonaa waa sheekeysan doonaa aniga iyo Maryamo. komentiyadiina aad iyo aad ayay muhiim u yihiin in aad uga qayb qaadataan soo wada dhawaada dhamaantiin. waxaan ugu soo noqnoqday oo nala soo wadaagay caruurta maaragtay gameka iyo sidoo kale baraha bulshada ayagoo yar yar laga celin layahay Naciimo kusoo qaata mowduucan. baraha bulshada si wuxuu leeyahay faa'iido sina wuxuu leeyahay khasaaro positive iyo negative. intaanan marka aan gudagelin insha Allah barnaamijka sidee u aragta milta ku lusta si waxaan u arkaa aad fiican topic oo u baahan waa in laga hadlo. Maryam hadalku u badnaan doontaa maadaama laba maaragtay role ay ciyaari doonto dhanka dhalinyarada iyo caruurta labadaba ay ka hadli doonto. anigana dhinacii markaas waalidka duu ilaa yiraaho soo dhawow adinkana soo dhawaada ما شاء الله. هاي intaan bilaabin horta maxaa la yiraahdaa dhinaca waalidnimada hadii ka fiirisid HK u fiican cunuga in social media loo yeelo. social media in cunuga loo yeelo waqtigan xaadirka ee maaragtay inkastoo ay maxaa la yiraahdaa tusaalahan WhatsApp oo kaleenta iyo ma xasuustaa WhatsApp oo wuxuu ahaa jiray no age in ahaa jira amaleyna ool markii ko uu imaanay laakiin markii dambe 6 laga dhigay marka dadna waxay dhahaan 13 dadna 16 15 14 aad see ku tahay adduunka maanta wuxuu ku socdaa horta si oo xawaare dhinaca loo guuraayana waa dhinacaas maaragtay technology iyo baraha bulshada. awlkii hore marka aan soo koraayay dadkii iga waaweynaay dadkii waaweynaay adduunka qaarado waaye qaaradahaasna waxa ka furuucmo wadamadan waxa ka sii furuucmo qof walba marka inuu maaragtay gobol gaar ahaaneed iyo tuulo gaar ahaaneed uu degan yahay oo mashriq wixii ka dhacay qofka kale maghrib jooga uu ka warqabin. laakiin waqtigan xaadirka qofka Mareykanka jooga iyo tuulada Soomaaliya ugu yar maaragtay dhalinyarada joogto dalad hoosteed dalad waa taqaano hoosteed ama teendo isla degan yahay oo iskula jiraa wixii shanqar 1 minute ka hor soo dhacay adduunka dhan waa laga wada warqabaa. sidaas daraadeed xawliga uu ku socdo horta dhan kastaba saameyn ku leeyahay. laakiin age-ka markii la yiraaho da wax ma maamusho horta number 1 xalaqada cunug 12 jir oo maaragtay smart oo wax walba fahansan oo wax walba soo isticmaali lahaay sidoo iskiga ilaalin lahaay sidoo ogaan lahaay jiro. cunug kale waxa jira wixii wax kale intuu arkaayo waalidka korinayeen way ka qayb qaadanayeen oo hadii negative waxaan ma arki karo waxaan ma yeeli karo wixii ay yihiin ilmihii inuu maaragtay la dhuuntii waxaas inay bilaabanayso. laakiin ani hooyo ahaan waalid ahaan cunuga da'dee ku siin leed markii la yiraaho cunug walba aqligiisa iyo wixii ka weyn markaas 13 sano 14 sano ilma inay ka weynaadaan social media markii la yiraahdo marka emailga soo galaayo WhatsApp ka soo galaayo waxa soo dhan mogt. laakiin ilmihi ayadoo intaas ay ka yar yihiin 10 sano 11 sano WhatsApp kii oo kale inay lahaadaan waqtigan xaadirka aad ay muhiim u tahay oo caa'iladii ama qoyskii oo kale hal group oo isaga warqabayiin oo cunuga meeshii uu joogay meeshii agta u dhigay cidii uu la hadlay wixii oo dhan kala soconaysido groupkaas intaan joogaa si gaar ahaaneed adaadu ku waayay xataa يعني qoyska memberki kale inta dhan shaal ahaan hada cunugu markaasna uu yar oo kale markii micraajada laga reebo munawara Soomaa hadii message ay soo dirto hooyo ay arki wayso oo aaba arki waayo ada arkiis saasoo kale inta marka in WhatsApp usab karoon maxaa la yiraahdaa YouTube iyo Instagram iyo Snapchat WhatsApp ka number u baahan yahay qofka inaa number ka soo qaadid si oo ku soo galo meesha marka hadii si loo fiiriyo cunuga numberka waxa loo siinaa ma saaxiibadiisa ama dadka iskoolka la dhigta ama wili uu ogyahay dadka markaas oo numberkiisa uu sii laakiin markii loo sii gudbo Instagram iyo Snapchat qofka ma kasto soo sameysana iyo sawirada netko ka soo qaadana sawir si oo lahayn oo dhahaasana ay ka iyo balaayo dhan oo maaragtay qofka oo ilmihi lagu siri karo
marka Snapchat iyo Instagram iyo kulley cunug YouTube waxaasoo dhan ilma 15 ka yar ma u diri lahayn dhinacaas laakiin wixii WhatsApp iyo WhatsApp groupka xataa iskoolka galaaska dhexdiisa samaystamo igoo yar yar oo 10 jir oo casharka ma samays waa ka shaqeeyay waxaas yani ilmihii oo dhan oo ku wada jiro hadii aad tiraahdo kala ka war waalid ahaan ma rabi ina kula jirtid mi soo maro mi yeelno ilmahana waxaas oo uu arkaayo wax weyn oo dhinaciisa laga soo mari karin oo ciyaalka oo dhan shal markaan ku soo diray message-ka shal markaan muxuu ahaa aan kaaga soo jawaabay maxaa yiraahdaa meesha oo ka baxsan yahay ama oo ka hooseen ilmahaas inay hortiis mareen oo maaragtay wax ay baranooyin oo casri ah cunugii marka dhuumaalays oo wuxuu bilaabaa xataa inuu gruubadii tusaale ahaan oo iska galo adigiina ka warqabin intaas in la eg marka gruubkaas yariis kale oo ku bilaabay adina ay celcelinaysid gruubo weyn ay u gudbi kartaa arrinta mogta marka waxaan dhihi lahay age ma ahe cunuga smartiga aqligiisa iyo waalidka la socoshadiisa baraha bulshada ilmaha da'daas khaasatan ma dhihi leen ani cunug walbo si gaar ahaaneed adoo kale aad baraha bulshada markaas oo galayso wax badan aa baranaysay waa yareed ma aada u yareed marka waxaan leeyahay in yar ilmihii maadaama wixii ay wax xawli ku socdo la ogaanayo la baranayo adiga waalidka wixii inaa la baratid inta in la eg Maryam wax kasta horteeda ay barato waxaan arkay shalay ilmo yar oo gacanta ahaay waa la lugeynay waa soconay way sii dhaafaysa xawli wixii way sii taqaan aniga waa inaan maaragtay aqoonteydii aniga aan kordhiya Maryam hayga tagi hay dhaafig ya tartan generation kasta aqoonta way kala duwan tahay waxyaabo anaga caadi iskaga arki jirno maaragtay in la soo fadhiisto la iska sheekeysan jiray normal ahay wixii ma jiraan hadda qof walbaba telefoonka si gaar ahaan ugu mashquulsan yahay Instagram Snapchat Facebook waxoo dhan marka waxaan leeyahay ilmihii idinka wala socotiin si tartiib waxoo dhan aan ka xaniba waa ka joojina daatireen wixii wax kale soo buuxo maamulka anaga ma bilhiin mo waana loo keeno yaale wax ay Soomaali soo saartay intaan oo ku jirta Snapchat Facebook wax man ku leenahay waan loo keeno yaale markii loo keenay inaan barano kadibna aan maaragtay ilmihii ku kontrolno oo sida hore aan u dhahnay wax kasta markii talaabo kasta qaadaysidna ka fikirta diinteeda muhiimada ugu weyn talaabada ugu horeyso diinta waa haye marka ma ku bilaabnaa dangerka si aan ko waxa sahay positive kan ku bilaabnayna laakiin dangerka inaan ku bilaabnaa fiican si hadhow inkii oo qofka aan cabsi camal oo imaato positive kan gudbaynaa markaan ka sii bixinaan maaragtay sida last cabin amal ay noqoto inaan dageyno had diyaarada amal u kacsanayna miya dadka hayna la ka amarka insha Allah saameynta baraha bulshada caruurta iyo dhalinyarada maadaama qayb wanaagsan ay leedahay ka dhawaajin qayb fiican ay leedahay qayb xun ay leedahay Maryam waxay doortay qaybta xun inaan ku bilaabano haye qaybta xun dangerada horta ugu waaweyn waxa waaye tan oo horta waalid kasta oo ka cabsanayo in oo dad aqoonin oo kaleento ina meesha ka baratid oo sawiradaada u dirtid ama magacaada u dirtid ama meesha aad degantahay anaga iskoolka waxaan xasuustaa mar sagaalaad ma ahay misdeedaad waxaan oo imaaday dad oo maxaa lahaa social service kamia dadka oo ilmaha arrimahooda iyo mental health waxaas ka shaqeeyaan aanoo imaaday iskoolka markaasay dhaheen maanta waxaan ka hadlaynaa dangerka social baraha bulshada aan ka hadlaynaa dangerkiisa markaasay khatartiisa khatartiisa markaasay ku waxayna warsadeen gabar kasto ama wiil kasta oo qof social media ku jiro oo warsaday tusaalahaan isoo dir sawir oo maxaa la yiraahdaa sawir qaawan oo kaleento isoo dir gacanta ha taago haddii ka horan galaaskeena 90% ee gacantooda taagan maxaa ka qabtaa arrintaas khatar weyn waxaa jiro Snapchat oo kaleento gabdhaha galaaskeyga iyo gabdhaha markaas aan isku age aan ahayn Instagram iyo TikTok iyo ilaa hadii tusaalahaan galaaskaaga gabdhaha adi kula dhigta hadaa saaxiib tahay gabdhahay saaxiib lihiin waa taqaana mugta kulli gabdhaha aad isku age ka tihiin oo dhan marka magaalada saas ma weyno waa is wada taqaan kulli marka waxay dhihi jireen Snapchat-ka wiilash waxay nagu soo sameynayeen ad al dhahaan maxaa nagu soo darsanayeen markay nagu soo darsanayeen wiilka haddana waxaa mogtahay anoo kale
wiilal ma la hadli maaho wiilka laakiin free ay u tahay waxaas way la hadlaa caadi u tahay marka wiilasha markay soo ay ku soo darsan wiilkan ilaa accept inaa dhahaysid waa accept gareyne kadib waxay la hadlaayeen hadal oo romantic camal leh way isla hadlaayeen horta arintan waxa waa ku arkay hataa dad maxaa liiga gabdhaha oo muslimiinta laakiin gadaal oo dhigana oo qalin riyo hadda inaan ka dhigi gabdhaha muslimiinta ahay maxaa la yiraahdaa wiilkii waa soo hadlaa wuxuu dhahaa interesting ku wahay bas hadalka meesha ku bilaabana mugtay markaas oo wuxuu dhahaa waxaan rabaa inaa iisoo dirtid kuwa wuxuu bilaawo waxaan rabaa inaa iisoo dirtid sawir oo see u eg tahay anaka marka 13 jir aan ahay markaas 13 jir gaware kawara waxaas maskaxda aad u weyntahay oo saq weyn waa marka wuxuu dhahaa sawirka see u eg tahay horta inaan ku arkaan rabis way u diree maxaa la yiraahdaa saana eka usin uu soo diraa kadib arrintii way sii adana markaa haysanin diin adigu controleyso iyo tilka xuduudullah xuduudii ilaahay uu ku dhigi adaa haysano bas iska tahay le free wax kasta waa sameynay caadi gool tahay albaab furanaat marka arrintii marka maxaa la yiraahdaa haday may tiraaho ku soo celinaa su'aashadan ku soo celinaa ilaa marka dambe hadan ay sawirkii ay u dirto markay u dirto wuxuu dhahaa bis ani ma qofna muu diray maxaa la yiraahdaa adina interest ku ahay waliga wax ma ku sameynay waxaa laga yaabaa hore oo ka share gareey way sawirka saaxiibadiisa oo wiilasha oo u diraa dooro isqoosqo qoslan heeday waa kana waxaa la yiraahdaa waa karaasi camal waa xidiga lagu siinaas waa u gambisi maxaa la yiraahdaa hadii uu hore ka diri waayeen wuxuu sameynaa dhoonkii oo arkay inay wax noqoto gal ama ay shaqo heshay oo kasoo firdhina mar waxaa jira hataa sawiradaas in laga qaadaabo meelaha oo waxaa jira waxa la black market makasi suuqa madow wax meel cabsi waa meelahaas sawirada lagu gada haddana maxaa bay maatibo geedkan artificial intelligence kan oo wixii tidmka qortid ku soo sameynayaan inuu wajigaada saano kaleento video iska duubto kale in laga qaado oo meesha lagu soo sameeyo manjaro halis waa cabsi waa haye marka hadii loo soo noqdo gabdhaha oo muslimiinta wiilal muslimiin oo soo sameynayaan waa arkay haye oo sawiradaasi waxaas yaal suuqnimada isu diraa marka 13 jir markaa tahay hataa hadii oo of course waa diinta waa kasee quraan waa kasee maxaa la yiraahdaa waa lagu tarbiyay laakiin aad weli ilma tahay waxaa laga yaabaa waxaas lagu baro dhan inay sida serious hada ani ii taho kalantan kasto qalad ahaan sameeyo waxaan dhahaa waxaa laga yaabaa gadaal dambe ama maxaa la yiraahdaa ilaahay muxuu dhahaa amal ama qaladkan maxaa kala kulmay amal ayuu ka ciis absi waa jarracyadaas markaas laakiin yarta waxaa dhahay bas big yuto amal ama waa big yuto macnaha wax yar le waay waxaan wax ka soo qaad ma leh ama ogtahay inay qalad tahay laakiin absisas weyn ku haysan faantinka in lagu la xisaabtamaynin ilaahay xisaabtiisa aw casdhay wili waa yar tahay waxaan waa iska sameynaysaa le amal dhibaato waa iyo maaragtay dadka oo qofka saaxiibka la yahay saaxiibadani aad u saameynayeen saameyn aad u xoogan waa iyo wadooyinkaas hadii aad maaragtay dad fiican ku wareegsan tahay oo kale waxaas aad kula yaraan lahaay oo kale inay aad u aragtid wax weyn bulshaduna way ka qayb qaadanay oo maaragtay aad ku wareegsan tahay Soomaaliya oo kale hadda 13 jir oo kale marka aan ahay hadii dib loo celiyo qof maaragtay wax iska sameyn karayo ma jirin hadii waalid oo ku jeedin xataa dariska ku jeed darisdo ku jeedin waxa ku jeeday maaragtay dhalinyarada adi facaada oo waxa soo kaleento diidan oo kale waa la tarbiyeynay qofka kala tarbiyeynay oo cabsi waxa jirtay dadka adigu la faac inay waxaas rabin هذا قف وحاسو كل سكول كل ما هذا كل أنا إنتنا كلو قبلها أنك صور جسنين ودين بسم الله ما هذا قف كانوا كله وقف كي وتربية صناعي دتك سكول كلا ديجناي دتك دوكسي كلا ديجناي دتك درس كه كتب والد كي أدي هواش اللي رب جذوم ويا حتى ده حاجة الوالد كود وتكنيني أو علمي تكنين أنت حكينا معاه دتك أو كحرين هاي إن قف كان اللي يراد هاي مركا محلي هذا hataa sida hadaa aan dhahayo kalento magac kasto qof ku sameysanayo gameka oo kalento waxaa ka baran kartaa qof ay isdhehaysid gabarwa ama ay kula eg tahay adoo yar waa isbaranaysiin hadii
gadaal dambana waxaa ogaanay inuu yahay nin weyn oo maxaa la yidhaahdaa garaystay ها oo oo meesha maxaa la yidhaahdaa waxaas ku soo didirooda ها يعني hadda kahor ma ahayd 2 sano ma ahayd 3 sano kahor barnaamij aan hadda kahor saan iskula fiirsanayne oo taksile oo maaragtay ilmo iska dhigaayo kaleento oo gabdho yaryar maaragtay meesha ay ka dhacday wiilashii bodkastida soo gudbin jiray barnaamij hadda kahor 3 sano kahor meed maaqa 4 sano kahor meelahaasay ahayd oo dhahay markii la baari miyaa barnaamijkaasoo kale loo soo gudbiyo ay ma xasuusta meesha ahayd laakiin tagsilayda u badneed dadka ilmaha yaryarka iskiga dhigaya inay maaragtay dad yaryar ay yihiin oo maasajada ay soo qorayiin iyo ballamiska ay ballaminayiin ballamiska haa waxaan xasuusta waxay ahayd showga booliiska ku sameynayay baaritaan markaas waxay iska dhigeen gabar sawiray saarteen markaasay dhaheen waa arkaynaa intaasoo saacado gudahood inta qofoodan maxaa la yidhahda soo aruureysa hadday kulligood noqdeen niman waaweyn kadib nimankii iska dhigeen inay maxaa la yidhahda message u diraayiin oo gabar yar ay yihiin booliiskiin waxay ciyaarooyin booska oo gabarti yareed kadib waxay dhaheen meeshaa noogu imaaw maxaa la yidhahdaa aan isku aragno bes meesha makiila tahay waaba nin weyn meesha soo istaagay la wareysaa lay maxaa saan u sameynay dhibaatooyinkaas waaweynaa dhacaayo marka kolley snapchatka iyo muxuu ahaaye bahalka kale instagramka iyo muxuu ahaaye iyo tiktoka dhalinyaraa loogu talagalaa layiri dad waaweynaa hadda aada u isticmaal laakiin dhalinyarada laftirkeeda oo tiktoka loogu talagalay isticmaalkiis hadduu qofka iska xuduudeynin damageka maskaxda dhibaatooyinka ila negativeki aan ku jirnaa mogta haye tiktok horta waxaa waaye maxaa la dhahaa soomaaliya sovelus program lemo program program camal tiktok program waxaa horta loo sameeyey in oo adi oo kaa dhigo inaa addiction ku tahay lagula qabsiyo balwad lagaaga dhigo sida youtube-ka camal maaha oo markaa youtube-ka soo gashid video adiga aa rabtid inaad soo raadisid kala doorasho ku imaana doorasho ama meesha hore markaa furaysidna meesha hore waxaa kuusoo koraa dadka aad subscribe aa ku tahay ama dadka aa badanaa fiirsatid ama waxa aa fiirsatid waxa oo lamidka camal ama aad la xiiseynaysid oo kale kana waxaa fiirsatid camal waaye camal haye hore markaa marka aad furtid youtube-kan ku daarmaayo ma aha mafahanti taabatid waa badanaa videohane videoyaasha oo caadiga ahoo lasoo geliyo youtube-ka telefonka inaa maxaa la yidhahdaa saa camal inaad dhahdid waa mafahanti wuxuu qaadanaa marka qofka fokuskiisa dhan iyo waqti qaadanaa dadkana waa ogtahay aaday lazy yihiin marka tiktok waxaa loo sameeyey waxaasan inuu ku fududeeyo telefonka badanaa saanaa loo haystaa mugtahay qof aad hadda haddii baska saaran taho kalenta ama aad soconaysid telefonka saan muu qabsanaysid saanaa u haystaa waxaa rabtaa wax oo suulka inuu sus u socdo oo shaqeeyo oo hataa fatan hataa maxay waa lagu fududeeyey suul kale inaa saas u dhahda marka tiktoka waxaa loo sameeyey in oo markaa furtid video ku daarma mogtahay kadib waxaa le kusoo daarmaa wixii hore aa u fiirsato like saarti wax ku saabsan youtube tiktok waa furt maha tiktok video hore loogu daarmaa bes waxaaba intaasoo second oo wuxuu ahaa jiray uu badnaan 10 ama 20 second le videohina u ahaa si oo maskaxdaada ciyow ula qabsato meeshaasaa marka waxaa ka imaatay focuska oo dad badana hadka hadlooy oo social media habaar waxay dhaheen ilmaha iyo dhalinyarada hadda soo koraayo fokuskooda aada u yar aqoontooda hoosay u dhacday aaday u dhacday maxaa la yidhahda galaaska markii wax loo sharxaayo ama 45 daqiiqo waa mogta 10 daqiiqo ugu horeyso intaasaa hataa ku adag 10 daqiiqo ugu horeyso kadib maxaa la yidhahda darbiyaashay fifiirinayeen ama teleefonkay ku jiraan ama haddii teleefonka hataa loo diiday ilmaha yaryarkan anaga hadda waxaan ku jirnaa mooho high schoolka marka wixii rabtidaa aa samey kartaa galaaska ma fahanti adi waa weynaatay ma fahanti marka responsibility aduu ku saaran yahay laakiin ilmaha waxaa lagu dhahay 10 daqiiqa ugu horeysa kadib maxaa la yidhahdaa ma dhegeysan karaa maalimada fokuskoodii dhan aa baxay
marka haddii isla markii bareeg la yiraahdo marka cunug walba wuxuu ka bilaabaa maxaa cashirkana loo yiri markii owl banaanka ay u baxaan oo kale waa kaa dhexgalay banaanka markay u baxaan oo kale meesha kaawtafada ama barxadda waxay ku sheekaysan jireen maxaa macalinka yiri maxaa cashir noogu xigo maxaa kan laba is weydiinaysa ma laha waxaa laga yaabaa 10 cunug inay meel wada taagan tahay laba is fiirisnaysana ay laheen oo mid walba saas oo yahay maaragtay xaq caafimaad xag maaragtay maskaxad waqtigi wixii oo dhan haye marka taa TikTok marka saas uu samaysan yahay 10 second bas video 10 second oo dhamay kan kale waa sii soconay adiga taa ma fahmaysid marka inta video fiirsada inta saac oo kugu qaadatay inaad TikTok la ku jirtid adiga maskaxdaada waxay barteen sida maskaxdu u shaqeynayso dadka sameeyay marka waxa la dhahayno 10 second bas saacad nalaqa kartay intaas amal fahant laakiin 2 saac 3 saac ay ugu qaadan kartaa intaasoo video intaasoo kumanaado video adoo fiirsad intaas aa fiirsanaysid inta in la eg mid kasta noqdo uu kugu reebo oo qalbigaada hadhow ama madoobeynaayo ama dhaawacaayo haddii markaas ay kulligood wada ahaayeen wax wada negative ah waxaa ka dhawaajis maadaama dadka ay lazy yihiin kooga hore waxaa laga dhigay 20 second aa tiri 10 second midkii aan kaa dhexgalayay hadda ka badan ahaan oo aa loo bedelay hadda ka badan loo bedelo 10 daqiiqo iyo meelahaas laakiin inay dad fiisanna malayna may marka hore dadku waa la qabsi markii ay la qabsi ku noqdeen laga fuji karo sababtoo qofka markii sigaarka iyo qashinka uu baranayo suuqa inuu soo gato mu ku bartamo haasha la dhaamo kan gumudka dhalinyarada asficiisa u dhiibo ama kuwa ka waaweyn oo gadan karo ilaa ay gaarsiiyaan inay isaga yiraahdeen adinoo qaq saas waa marka TikTok oo si hadadan waxa cunug oo fiirsanaa iidan waxay leedahay mooho saameyn aad u weyn aad hadda waxa soo baxay waab ku tusib meeqa maran ku tusib nimanka oo Soomaaliyeed weli magalay gadaal faliista weli maniso ataagiray niman muslimiin oo podcast ay soo sameeysanayeen saano kale soo fadhiisanayeen kadib waxay dhahayeen naagaha waxay hadlayeen si oo aad maxaa liidaha u xun ma fahanto wax oo ilaahay hata diinay way ku sii darsanayeen diinta ayaan horata arina TikTok dhan qabsatay oo nin sheekh ma ahay ma oy maxaa liidaha qofka sheekh ma dhihi karo ma qof oo diin maxaa liidaha videoshiisu badan yahay inuu diinta ka hadlo marka wuxuu soo dhahay podcast iyo joogay markaas oo wuxuu dhahay haddii naagaha haddii ay markii qabowga la gaaran jaakada hadday kusoo karkashtaan jilbaabkooda waxaa soo baxaa maxaa lahaa muuto habsmoodka maxaa lahaa cawradooda inaa soo bixayso marka waa inay jilbaabka jaakada inay jilbaabka hoostiisa gashtaan markaas maxaad qabtaa ardaad intaas in oo jaakada ay hoos ka gashtaan culimadu mid walba si gaar ahaaneed uga hadla ay laftirkooda inay يعني أرنكي أي هل واحد أي كذي كان ويفعنا له علوم بدنا حنا كذا جيست معرضة خمارك إني كور كحرت جاكت أي كحرته أوكي وا كي قالوا حولها جلبابك إني جشت بناك أي هوس كجشت جلبابك لك جاكت أي كور كجشت أوكي وا ميك قالوا حولها كور إني كجشت وا لكن جاكت ده بوينتيجا وحوا بعرف أسوداء ما هو بعرف كوحوا وح عقين جاك جلبابك أنا محد مكاقيا markaan ka hadlayna laakiin waxaa soo kalanta oo ay kasoo hadlayay moogtahay nimankaas oo muslimiinta adi marka cunugaada oo wiilka waxaas markuu arko TikTok halkaas video markuu ku arko TikTok inaa like saartin wuu kusoo badinaa moogtahay videoyaasas camal marka wiilkaada sii fiirso tartiib waxaa arkay wiilkii u si hataa oo mindsetkiisas oo u bedelmaa oo in ay wiilashii inay gabdhaha u arkaan wax oo lalahaa karo ama wax oo maxaa la yiraahdaa hooseeyo oo wixii usi oo dhihi karo inay samayso waaye maxaa la yiraahdaa hadduu qaldan yahay hadduu saxsan yahay waa dhihi karaa ama hoosaama kuu fiicno laakiin si oo lahaansho camal alaab oo leedahay oo aad sidaa rabtid
maxaa la yiraahdaa Bedelinaysid. bedelinaysid waxaas mindsetka waa arkayaan ku dhahay Khatar commentayaasha markii la furo wiilal yar yar oo teenager ah ka buuxo oo dhahayo gabdhaha saan waaye gabdhaha wasaq waaye aad u xun tahay Aad iyo aad. oo weliba aad kor oo u socdo gabadhan colaad iyo maaragtay dhibaato wiilkaas hadda saas dhahayo gabdhaha la dhashay haddii la rabo 5 gabdhoodaa la dhalatay asaa kaliis wiilka colaadaas maaragtay oo meeshaas mindsetka bedelmaayo oo kasoo qaadayo wuxuu kula soo jeesanaa guriga intuu meel kale ka bilaabin ilaa qofka kooga hor intuu ku burqadaa gurigu ku burqanaa haye madana waxaa imaatay mooho nin oo magaciisa marayo hadda inaan sheega laakiin nin oo hore ku tusi waa oo internetka qabsaday oo podcast soo samaystay awal muslim ma ahaan jirin laakiin wuxuu kusoo kacay inuu naagaha aaya hadasi oo xun ma fahanta oo dhaho naagteeda wejigeeda ma tusi karto maxaa la yidhahdaa inay guriga ku jirto waaye niman kale ma la hadli karto nin kale agtiisa ma ku neebsan karto nin kale agtiisa ma fadhiisan karto maxaa la yidhaahdaa naag hadday nin la hadasho waxyaabo badan oo mafahantay oo qaldan usi marka followingkiisa iyo dadka usi subscribe ku aho dhan waxay u badnaayeen wiilal maaho ilaan naago ka hadlooya marka wiilal maxaa la follow garayna marka markii dambe waxyaabo kale intaa usi lagu qabsada waa la xiray haddii arrintaa iyadana way soo badatay niman badan oo radical ma fahantay oo ka hadlaya waxyaabo aad u saq ah oo maxaa la yiraahdaa dhinaca saan u dhahaa waxay aadeen dhinaca oo maxaa la yiraahdaa nimanka oo muslimiinta camal ahne isku mindset camal ay qabaan laakiin differencega waxaa leeyahay ka muslim ma aha kana muslim waa marka wuxuu sameynaa marka ninkaas oo muslimka ahayn ilaan markii oo waxaas ka hadlayay dad badan oo niman badan oo muslimiin ahaa follow garaynaya mugtay markii waxyaabo kale inta lagu soo qabsado wasaq iyo waxaas wuxuu sameeyey muslim oo noqday si oo dadkaas muslimiinta oo full ahaan oo usoo qaato of course ani ma waa kari maho arrintaas waxaa laga dhexaysaa usi ilaahay laakiin arrin oo maxaa la yidhaahdaa dhacdi waa intaasoo mar nina arkay oo social media ku jiro waxyaabo wasaq oo honaa ay hadla waxyaabo lagu soo qabsana waxa la dhahaa waxaan qalad waay maalintii isbuuc camal lagu maqnaanaa social media wuu kusoo noqonaa waxaa dhahaa muslimna bahan bas gacana oo furan kusoo dhaweynaa mar community oo muslimiinta usoo waxaas dhan soo sheegay ma aragtay wasaq kasta oo lasoo galo macnaha meel looga soo dhuumanayo camal wiil marka oo wiil hataa ma aha nin weyn wa maro marka life oo soo galay markaasoo waxuu dhahay wiilal oo si fanskiisa suuq moo joogo mool moo joogo mise airportka joogo moo laak meel oo joogo markaasaa wiilal si fanskiisa u imaada markaasay dhaheen maxaa la yidhahdaa ma xasuustaad waxay dhaheen waxaa malaynaa inay dhaheen naagaha waxaa waaye maxaa la dhahaa ereyga oo naagaha oo nimanka badan la seexdo sharmuuto waa naagaha sharmuutooyin waa oo dhahay markaasoo dhahay maxaa la yidhahdaa saas qalad waaye usaana hore usoo sheegi jiriya oo waxaas kusoo celi jiri markaasoo dhahay maxaan sameey kaamara usoo fiirnaa markaasoo dhaha wiilish saamaan ka dhiga camal يعني سامان أبدل سامان أبدل ويلشي هاي كور أنت إن لك سامين عمان عنقنا لابيتون سدحيتون جير بوي ما الحملين إنه القصر دون عمل وإسقسنا إنه له دون واحد هذا عمل أما أرتي تدكي مارتي أو في سنة وساسيه مو صور كاس إنه حس أو جعلي أو كارلا أما أو قبرتي كل شيء حتى لابيتون جير شيء عايو sidii maaragtay mootadii ama qaabkii gabadha ay u samaysneed waxaasoo dhan halista maaragtay baraha bulshada caruurta ku haysato ayay maaragtay taas ay ka mid tahay tiktokii markii intaas aan ka niri instagramka iyo baalkii snapchatka isigana waa midda ay kow dhalinyarada ama ilmaha kowga hore ay ka bilaabaan xoogaa ay ku durqaan ay ku siqaan ay yidhaahiin maaragtay wax la iska fiirsanaa aniga camal wax inaan geliy ma rabe haye saameyntiisa iyo xawaarihiisa sida hadda tiktok oo kale dadka hawada looga qabsaday oo maskaxda looga maaragtay wareegsaday cunug kasta hadda malahan ma waa maskaxdiisa
waa lala leeyahay Yeah. dhalinyaradii waa la leeyahay maanta darajooyinkii ama imtixaanadii ama iskooladii ay geli jireen sanadihii hore hataa hadda baaritaanada la sameeyey Yeah. waqtiyadan xaadirka ma galaan weliba khaasatan wiilasha aqoontooda hoose aad ugu dhacdaa leeyahay yani percentage aad u xoogan gabdhaha weli rafanooyo oo dadaalooyo ayagina dadkii ay daawanayeena dadkan noqday marka haye Instagramka iyo Snapchatka waxaa malaysaa Instagramka use horta sawir lee la geliyaa maho haye sawiro la geliyaa iyo video hadda TikTok structureka uu soo samaystin wax cusub oo usa la imaan mogtahay oo hore loo arkin haye maxaa la yidhahdaa waxaas oo dadka ay addiction ku noqonayin hal mar hadaa TikTok furtid waxaa la arkay adoo hal saac ku dhaaftay marka Instagramkii iyo Snapchatkii iyo YouTubeka hataa hadda waa aragtay YouTube shorts shortigaas waxaa laga waaye wax oo waa loogu talagalay koobi laga soo sameeyay TikTok markay arkeen inuu saan kor ugu kacaayo oo xagga loo wada wareeganayo si dadkii loo xakameeyo marka oo loo xajiyo Instagramkana waxay samaysay waxa la dhaho Reels Snapchatkana magaciisa ma xasuustay laakiin usigana wuu samaystay YouTubekana shorts ko samaystay marka halisla waasho marka aad hadaa dhahid hataa TikTok ani hataa waxaan isku arkay TikTok anoo maxay samarkan markii iskool aan lahayn waa iska fiirsanaa mogtay kadib waxaan dhahaa TikTok inaan iska bixiyo waani oo maxaa la iska dhaaf bas TikTok aan iska bixiyaa mogtay waxaan arkaa aniyo Instagram ka fiirsanaya Reels marka haddana kiyaa tuuray YouTube haddana shorts aan fiirsanaa inta soo wareego intuu soo wareego waa marka alisla waasho waaye subxaan allah teknolojigan xawaare aad u ziyaada u ku socdaa weli waxaan ku dhex jirnaa khatartii uu lahaa markii loo fiiriyo khatartii banaanka waa aragnimo maaragtay dadka yani dadka ku dhibaateynayo dadka wejiga soo bedelanayo dadka magacyada soo bedelanayo dadka sida xun isticmaalayo dadka kala jiidanayo waxaasoo dhan waan dul marnay kulay inaan sheekaysana ugu talagalnay wax oo maaritalmo oo qeex maxay tahay waxaas saana laga wada qeexitaan uma fadhinin inta oo aragtideena iyo fikirka iyo wixii adi khibrad haysid inaan maanta aan dhageysana ugu talagalnay mogtahay khatartii banaanka markii laga soo baxo khatartii gudaha haddana oo qoyska dhexdiisa khatar uu ku yahay social media khatarta uu ku yaho kaleento markii adi aad dhalinyaro tahay walaalihii kula dhashay waalidkii adi ku dhalay iyo waalidkii sii dhalay tusaale ahaan haddii ayeeyoo kaleento maaragtay iyo awoow ay gurigii ay degan yihiin hooyo aaba inay maqan yihiin laga yaabaa adi iskool aa ka imaad guriga aa imaad ayeeyo iyo awal maaragtay awoow Soomaaliya da'da ka yar dhalinyarada 13 jir 14 jir 12 jir waalidkay u adeegi jireen waa la sheekaysan jiray waa loo xeesan jiray hadda dhalinyaradii waxaas laguma haysto khaasatan weliba dadka dibadaha lagu dhalaayo wadankiina lamid leh waa hadda sidee iskugu furmeen adduunkii oo dhan anaa galaya midaan oo maaragtay saameynta baraha bulshada caruurta iyo dhalinyarada khaasatan qaybta qoyska khibrad ahaan oo hooyo aan ku cabiri doonaa insha allah idinkana inaad ka qayb qaadataan aragtidiina aad soo bixisaan walaalayaal wax badanaa la kala faa'iidaa dadka nala socdo kaliya inaana daawatiin waxa waa dad naga aqoon badanaa na daawanayo noo soo qoro marka insha allah si dadkii kalenta ay uga wada faa'iideystaan annaga laftirkeena wax aanan markaas ogeen ama waxaa idinka samayseen hadduu jiro loo kala faa'iideysto oo bulshadii maanta inay isu hiiliso maaragta aad ay macluumaadkii isu soo gudbiyaan maaragta aaday faa'iido u leedahay khasaaraha qoyska uga imaan karo baraha bulshada waxa waaye kow ilmihii iyo waalidkii inaysan waqti isu helaynin cunug walba mobiilkiisa gaar u ah maaragtay uu ku jiraa wixii uu rabo markaas si gaar ahneed oo u daneynayo uu daawanayaa waxaa meesha ka baxaya marka in lasoo wada fadhiisto wada sheekaysigii la wada sheekaysan jiri qosolkii la wada qosli jiri waxaasoo kale haddii maaragtay aan liska xakameynin isticmaalka teknolojiga waxaa meeshaas aad iyo aad halis ay uga imaanaysaa in qoyskii ayagoo isla nool ay noqdaan inay absenti kale yihiin oo iska warqabin labo khasaaraha uga imaan karo caruurta iyo dhalinyarada waxay tahay waqtigoodii inuu meesha ku dayacmo oo laga yaabo iyadoo cashir uu u yaalo oo akhris u yaalo oo imtixaan u yaalo ilmaha awalkii hore imtixaanka waxay akhrin jireen isbuuceedoo ka dhimantahay 2 isbuuceedoo ka dhimantahay hadda waxaa laga yaabaa biri hadday imtixaan leeyihiin hataa inay baqdin iyo welwel iyo murug markaas ay geli wayso kaleento oo waxaan
maskaxda looga qabsaday oo meel kale ay la nool yihiin ay ka farabadinayso haddii ay ka xakameysneen markaas oo loo soo gaday maaragtay gamekii wixii oo dhan arrintaan maxayba noqonay topic maalin kale laakiin ilmihii hadda waxaa imaanayo program badan oo dadka lagu xado ma fahanta oo la dhahaayo haddaa social media soo geshid oo tiktok soo geshid ama waxaan soo geshid waa lagu caawinaa meeshaana lacag samey kartaa shaqo ka dhiga kartaa iskoolada maxariyaha la iska dhaaf marka maraykanka oo kalento waxaa mogta iskool qasab maaha intoo kale ilaa 18 qasab makugu ah intee maraykanka maya isku qalday inta ilaa 18 qasab ay kugu tahay inta ilaa dugsi sare qasab maraykankana qasab ama ahayn dadka oo maaragta ku noolaan la soo wadaagi doon maadaama anaga waxaan arkay tiktok gabdho badan oo high school ku jiro kasoo taga si ay lacag ay sameeyaan social media way soo badanaysaa marka hadda dadka inay iskool hataa aadin social media la soo aado wadan soo jeeda waaye asi laftarkiisa ma ahaan jirin dugsiga sare qasab sababta ay qasab uga dhigeen waxa waaye dad ilmahooda iyo dhalinyaradooda usoo jeedo taasaa waxay keentay marka in ilmihii markay dugsi sare dugsi dhexe markay dhiganayeen iyo inay isdadejinayeen ay dhahayeen dugsi sare marab inaa aado waa shaqaysan karaa waxay arkeen marka in aqoontii dugsigii sare oo dhan galaasyadii ay eber noqonayeen shaqo haddii la yinaana barahan bulshadaba qofkii tiktok ka shaqeynaa waxaa la dhahaa lacagaa kaa soo galayso tiktok cunugii attention raadis waxaa loo isku sii murjinaa asoo 15 jir 16 jir sidee dadku heshaa see maadana wixii wax ka daran soo gelisaa maanta kana gelisay waa la fiirsada birkii ku khatarsan oo xataa uu arki waayo maaragtay in waxaan in la soo gudbiyo ay tahay waxaan la soo gudbinin inay kala tahay oo iskooladii dugsiga sare markay eber noqdeen iyay ayagana bilaabeen ayaga iskuguma sugaan moo ilaa wixii ay dhul ka tagto isla markii dad soo jeeda wadankan maaragtay maamulka haysto dugsiga sare saas waxay uga dhigeen marka in ay qasab tahay oo ardaygii inuu dhameysto ay tahay mid kale oo wadankan haddana ammaan uu ku leeyahay waxay tahay ardayga intuusan dugsi sare gaarin ee dugsiga dhexe uu dhiganayo telefoon kursiga lama tago maho kursiga galaaska cashirka uu ku dhiganayo telefoon lama tago salad maho waxay idin ooli jirtay marka galaaska albaabka aa ka gashiin meesha ku aruurinaysiin qof walba number uu lahay maho qof walba number uu lahay miiska number qoni numberkaas saaris hadhow markii bareeg la yiraaho soo qaadinayna telefoonka meesha kuwa hadda dugsiga dhexe waa kuwaas dugsiga hoose haddana waxay sii dheeraayeen markii baska ay soo raacayeen ama la soo deeyo lay mobilka arki karaan barxadda oo iskoolka markay bareeg ku jiraan xataa ma soo baxsan karaan isla markii message ku soo dhacayo kaawta tuminankay ku jirtaa habka akhlaaqda darajo iyo waxaa looga goostaa dhow shahaadad markii lasoo siinaayo in telefoon cunugan barxadii uu ku isticmaalay marka saasoo kaleento wada shaqeynta oo waalidka iyo cunugii marka uu ku imaana adi waalidka wuxuu ku dhahaa telefoonka aan liima ogol aan liima yeelo aan liima waxee wada shaqeynta marka oo iskoolka aa la shaqeynaysiina aaday muhiim u tahay khasaaraha uu sameeyey waxaa ka mid ah in ma aragtay xanuuno fara badan ilmo ayagoo yaryar ay kusoo degdegtay oo xagga maskaxda dhibaatooyinkaas iyo khatarta ayay leedahay positiveki ma galna ileen khatartii ma dhammaanayso oo baxad weyn waa lasii sheega haddii la yiraaho maanta dhan sii soconayso laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay guriga inuu lahaado maamul meel haddii waa leeyahay la yiraahane waxa waaye kala dambeyn inuu maaragtay qof madax ahoo maamulo qofka madaxda dadkii adeeci lahay haddii sharci lasoo dejiyo sidii anaga janalka nala dabaale family 3 sano ka hor meesha telefoonada habeenkii aan ku ridno oo kale iyo maaragtay keenista maryama hadday telefoonkeeda sanadkii ugu horreeya maleyna oo telefoon la seexato ma marabtaa inaa asxaabta la wadaagtid abkuu ahay sidii maaragtay telefoonka halkii sano oo inaa habeen haysatid oo kugu horreeyey hadda waa intii ka horreysay oo maaragtay telefoonka waa soo xarey jirta moo anaga dhanna waa xarey jirnay sas weyn male waa u bartay mogtaada habeenkiin aan telefoon la-aan ahaa bas hadda minkiin seexanaa waxaa la iska dhigaa miiska bas hore len u seexdaa marka midaasna waxay ahayd mid anaga sharci oo noo degsanaa hadda ilmaha iyada ka yaryar weli sidii ku jiraan soo gaara horta maryamo in telefoonkaada markaas adiga aad sariirtaada agteeda ama maaragtay mana fiicnaba qofka inuu ilaa yar هذا الدرجة أو إنه وجود له تلفونك إلا صرت أو لقرك نقطة أم إنه تلفونك كإنا أي وحاسو دن مرك ما شاء الله تبارك الله مريم إلهي أكو دور الله كحفظ ديو إن
adigana qof fiicana ahayd oo maaragtay waalidkii kusoo koriyey keliya arrinta ma ahane adigana qof fiicana ahayd subxaan allah maasha allah allah ku sharfo way kusoo ducooyaan dhammaantood oo waxay yidhaaheen maryamo qof hadaraad kula soo kaftamay barnaamijka goosgoos ahaan inaan dhexgalno ama waxoogaa aan jilgaraynoon qosolno qof waxuu ku dhahay meesha aa ku dhalatay waa ogahay aniga soo sheega waa liisa warsadaya haddii liisa warsadaan dhahay may waa ogahaa lagu dhahay maxaa dhahay qofka meeshaa ku dhalatay waa ogahay maryamo ma soo sheegaa waa kula kaftamay may ma dhihi inoo cabsiyo cabsi waa soo sheegaa lagu dhahay marka insha allah aan dadaalno waxaan gelaynaa negativekii xoogaa ma moodaa maskaxda inuu daaliy aada u daaliy naga bixi negative kasto ka waran marka qof maalin kasta negative daawanayo haa wallaahi maxaa la yidhaahdaa hadda bal qiimay ka hadlid aan ka hadlaynay anigana aan daalay maskaxda waxaa malaysaa inay laba mar sidii ay normal u shaqeynaysa camal laba mar maxaa la yidhaahdaa idoo lagu dhuftay dhabal ay noqotay dhabal ahaan inay u shaqeyn laba ujibaar wallahi waa ku daalnay maxaa ka dhihi leedaan macnaha barnaamijka sida uu enjoy u noqonayo markuu qofka positive ka hadlaayo qosolaa imaanaa sheeka imaanaysa laakiin markuu qofka wax negative ka hadlaayo ama uu dhegaysanayo uu daawanayo difaac ee maskaxda gelay difaacii marka aa ku jirtay aa ku daalinayo mar kale insha allah arrimahaas aan ka hadli doonaa si caafimaad ahaan barnaamijkan ugu talagelay inaan caafimaadka uga hadla caafimaadka waxaan uga hadlaa channelka adiga isahoo haddaa ila soconin xagga nagala soco midda kale waxaan idinku celcelinaa mar walbo maryamo kor u qaada oo maaragtay baraha bulshada meelaha ay ku leedahay taageera oo maaragtay gabadhiina soo dhaweeya oo 300 instagramka hal ii gaarsiinay idin tiraad shub iyo shubka kala tireen muxuu ahaa ignore gareenta wanaaga saameynta baraha bulshada caruurta iyo dhalinyarada wanaaga si maskaxda xoogaa deganaansho iyo xasilooni maaragta hadda aan caga dhigashadii oo diyaaradda markay caga dhiganayso si tartiib ay u caga dhigataa mogta qabooban dadkiina say nabad ugu seexdaan welwel iyo cabsi iyo balaaya maaragta ee baraha bulshada negatifkiisa uu yahay inta aan kasoo qaqaadan weliba in yar waa haddii loo fiiriyo waxa ka socdo wanaagiisa ani horta example fiican ahaaya oo hadda markii oo sanadkan oo maxaa la yidhahdaa dagaalkii falastiin haddana mar labaad oo mar saddexaad mar afaraad meeqa mar soo cusboonaaday maxaa la yidhahdaa arin weynay noqotay maha markaan dad badan oo falastiin la jira la helay dadkaas of course social media soo galayeen ay hadlayeen arintaas dadka ugu badan marka tiktok ay kusoo sameynayeen video aan aqli aad u fiican ilaa meeshaas dadka haduu badan yihiin saxwa marka tiktok ay video ay soo sameynayeen maxaa la yiraahdaa ilmihii marka waxay dhahay maxaa waxaan oo maxaa la yiraahdaa maanta oo dhan laga hadlaa marka waalidiin waxaa jira moogtahay haddiin ka hadda muslim maxaaliyi soomaalida haddiin ka baxno adduunka dhan ahaan u fiirin waalidiin waxaa jira oo markaas arrintaas rabin inay ka hadlaan ama ilmaha haddii oo tiktok ay lahaa lahayn ay u sheegi lahayn adoo kale hadda waa noo sheegtaa muhu wixii adduunka ka socdo haddii oo anaka tusaan ahaan soomaaliya oo kale haddii qalad ay ku jirto ama wadan kale ay qalad ka gashay ama haddii soomaaliya qalad laga galay ama adduunka oo dhanbo si aan oola socotiin marka waalidiin waxaa jira oo saas ahayn oo ilmahooda rabo inay ka qariyaan waxaas ka rayayaan marka raya waxaa waaye macnaa xuduudeeyo marka hadda tiktoka wuxuu keenay arrintaas in oo ilmaha hata ay ogaadaan cunuga marka guriga wato waxuu dhaha hooy maxaa arrinta falastiin iyo waxaas maxay tahay marka ilmo badanoo waxaa maqli oo dhahayo maxaa la yidhaahdaa waalidiinteyda arrinta falastiin israa'iil ma rabaan inay ka hadlaan waa xanaaqay magiin soo qaado ma fahan oo ilmaha ay viyaasi u fiirsanayeen weykaaba waxay dhaheen arrintan horta inaan soo baaro nedkay geliyeen intay ka bilaabatay falastiin goormaa la sameeyey israa'iil goormaa la sameeyey maxaaba dagaalkan labadan wadan maxaa la yidhahdaa ma isla heshiiyaan le cunug yar waa mogtahay labadan wadan maxay iskula heshiilayiin dagaalayiin marka arrintii masay usii socotay example ahaa oo waxaa jira mogtahay game u dhaho Roblox gamekaas marka waxaa
waxaa waaye waxaa waa game oo gamemka lagu sii sameyn karo ma fahanti haye adi waa adi hataa youtube camal waa oo laakiin game qof walba waxaa ka furi karaa akoon kadib akoonkaas wuxuu sameyn karaa game ama haddii oo rawaana gamem lagu sii dheeli karaa haye qof walba gamem kala duwan lagu sameyn karaa ma fahanti ha meeshaas haddii kawana ilmahaas ilmo yar yar u badan marka ha meeshaas haddii kawana ilmaha inay galeen ay sameeyeen game magaciisa loo Free Palestine ya oo maxaa la yidhaahdaa marka waxaa jira mogtahay gameka markii ku jirtid waxa oo adigu dheelayso jinjini haye jinjinigaas marka waxay u dhigeen calankii Falastiin ee dhahay calankii Falastiin marka waxay ka dhigeen inay banaan baxayeen Ha. ilmo yar yar oo mogtahay banaanka ma la dhihi karo soo banaan bixi karaan waalidkooda Ah. marka waxay dhahay qof walba message-ka ma aragti meesh ha marka oo ku gudbin karo. aqligaas Ha. inay gamekaas maxaa la yidhaahdaa ku caawiyaan Falastiin ha waxay sameeyeen jinjinihii u dhigeen maxaa la yidhaahdaa calankii Falastiin kulli isku soo aruureen jinjiniyaashii waxay sameeyeen inay soo wada socdaan ha oo banaan si oo baxay banaan bax ama ha balliq cani walow aaya marka Masha Allah. waxaa la yidhaahdaa maasha allah waay dhinaca oo positive-ka waa maaragtay haddii uu jiri laheen baraha bulshada waxyaabahaas waxaa laga inay ogaa lahayn Falastiin iyo maba ogen iyo- qaaradeeda iyo meesha ay ku taalay iyo wadanka uu yahay iyo dad inay isdhibayiin waxaas ma ogaan laheen sidoo kale faa'iidada labaad taas faa'iidada ugu weyn waa Naye. faa'iidada labaad oo maaragtay uu leeyahay oo kaleento aqoonta Ha. aqoon kororsi dad fara badan oo tacliintoodii guryahoodii la fadhin lahay Mhm. oo qof kaleento gurigiisa jooga wax ka baranayo Ha. maaragtay aad ziyaado oo aad culumadii oo kale hadda maanta Soomaaliya oo kale tusaale hadda soo qaadan way burburtimo Ha. dadkeedina way la burbureen diintii iyo maaragtay wixii ay yaqaaneen oo ila diinta islaamka aaminsanay afleemaha mugta Ha, aflama. ficilkii aa la rabaa culummadu waxay sameyn jireen way wareegi jireen intii dagaalada ay socotay dibadaha markay imaadaan tuulooyinkay dad ugu tegi jireen iyagoo guryo meel ugu oolin dhibaatadaas hadda marka waxaa u fududaatay barahan bulshada isticmaalkeedii culimmada laftirkeedii inay 114 tafsiir ay soo gelinayeen Ha. hadda 114 tafsiir qofkii raba inuu barto sheekh dirirow galaa Ha. 114 laba mar miya ama 3 mar uu ku deji Sheekh Dirin wuxuu ka helaa faa'iido iyo maxali markasta qof walba oo fiirsado oo u duco waxa uu sii kordha ajir hajir ha ها سيرتي ومعركتي النبي صلى الله عليه وسلم او كومبليت شيخ ادم سيرو الله نحرسته ودنتي او uga tagay Soomaalida had way u duubanta ma ka rabot horaaka galay meeshii aaday Sheekh Mustafa inta in la eg oo hadlay oo gubaaba oo ka hadlay dhiirigelin oo ka hadlay nolosha qabka soo qof u noolaan lahay sidoo uu limo u korsan lahay haye Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir Canada degan inta in la eg haddana dhalinyarada u sii dhow yahay sheekhaas mogta wax badan oo fahansiiyaa wax badan dhinac kastoo ka caawiyaa oo mentalkooda dhisaayo wuxuu ku dhiirigeliyaa xataa inay isguursadaan ayagoo yar yar kadib inaa ilmo dhashiin waajib maaho yidhaaha maaragtay inaa xalaashiin isku ilaashatiin isguursatiin wax badan maaragtay waa ku heshiin kartiin markaan qalinjibino oon wax helno aan isguursanayna laakiin intii qof walba si gaar ahaaneed meelaha kaligiisa soo single u wareegi lahay wax badan oo ka hadlaa oo faa'iidadaas fara badan oo dadka waaweyn iyo dhalinyaradii wixii oo dhan ay ka faa'iideen hooyooyin fara badan ay wax ku barteen cilmi iyo aqoon badan ay ku yeesheen muhiimadda waalidiinta saaran waxay tahay un kaliya adduunkan maanta xawaaru ku socdaa teknolojigaas saasuu cirka ugu kacooyaa yani shaqooyinka haddii qof walba shaqadiisa uu jadiidinin 3 sanaba hal mar wuu sii duqoobay xataa shaqada qof walba shaqadaada maaragta inaad jadiidisid ilmaha maanta tusaale ahaan neerasaa tahay cunuga kaayira oo adi aa dhashay waqtiga uu neeraska aadayo tacliin kale oo taadii ka badan aad ay badan ay duwan oo barana marka adiga haddii aad taadii ay sii duqoobayso waxaa la rabaa inaad la jadiidisid awalka hore waalidiinta waxay ahaan jireen 50 sano 30 sano cunuga hogaamiye ayagaa u ahay hadda 50 sano 30 sano cunuga hogaamiye muu noqon karti 20 sano hogaamiye muu noqon karti waxaan ula jeeda fahmi waa fahmi ha maxaan ka wadaa maxaa ka wadaa waalidka cunuga hadaa cunuga hadaa ma dhihi karaa ilaa oo 50 jir ka gaaro waxaa loo dhaqmaa sidii inuu 10 jir yahay camal inaa controlshid wuxuu sameynaayo hadda taas kama wadin waxaan ka wadaa waalidka aqoontiisa mar walba saree jirta ilaan wixii isma bedelaynin ma fahanti 20 sano haddii adi aad wax taqaanid qur-aankaa taqaanaa maaho iyo tafsiirkaa taqaan inta aad taqaanid cunugaas aad ku hogaaminaysa
mafahant adiga hogaanka markasta calanka adaa wadi hadda laakiin aqoontaada aqoon ka xawaareysan oo barana mafahant adiga gaboobays awalka hore markasta adaa sareysay oo aqoontaada aabaan soo weydiina hooyaan soo weydiina ahaan jirtay maanta hooyo aabo waxay joogaan maryamo inta maxaa laga wadaa maryamo waxaana iisoo gal telefonka iga bixi intay wax iga halaynin saasaan ka wada ma fahanti awalka hore waalidkaa hogaaminayay hadda laakiin hogaanka waa lala haystaa waxa loola haystan waxay tahay aqoontii iyo teknolojigan xawaaraha ku socdo marka waalid kastoo haddii iskorin weysid oo wax aad baran weysid oo fadhiga aad ka kici weysid oo maaragtay aqoontaada haddaa aqoon laheedna aad jadiidin weysid haddii aadan lahayn aad baran weysid wax leed la yiraa ma jirto dadka qaarkood 40 sano markay jiraan kudhahaad kadib wax baran karaa 50 sano markay jiraan waxay kudhahayn wax maan baran karaa hadda marka waa inaan nidaahaa leed lama jiro 50 jir 60 jir 70 jir hadda le iskuul bilaabo marka muuqaalkii waxaad moodaa in aan kasii bixi rabno dadkiina aan qaboojinay anagana aan xoogaa qabownay maxaa kusoo gabagabeynay gabagabadii gunaanudki waxaan kusoo gabagabeynaa sida aad dhahday waxaan dhihi lahaa waalidiinta in ay la socdaan ilmahooda waxay sameynayeen markii cunugaada oo telefoon ku jiro oo agtaada fadhiyo sas ku yahay telefoonka inaa maxaa la yidhaahdaa fiiri sida ogaatid ma fahanti waxa oo ku jiro adoo haddana cunuga maxaa la yidhahdaa caburinayno maanta ona telefoonkaada kale aan fiiriya maxaa ku jiro maxaa kan cunuga hataa waxaa la dhahay maaho haddii oo maanta ona cunug daw socotid wax kasta controleysid waxaa loo raboona inuu sii sameeyo adoo ogeynuu sameyna adi bis u sharxi waxaa dhehe waxaan ka khaldan social mediaha waxaas waaweynana jiro adigana of course waa lagu sameynaa laakiin meelaha waxaas ay ku jiraan ha aadin hana geni cunuga marka markii maxaa la yidhahda ou dareemo inaa aaminaad ku qabtid wuxuu dhahaa sameynay aaminaad marka inaad isku qabtin cunuga intee in leeg hadda waxyaaba aan ka warqabin adii soo tustaa wax badan aan kusoo diraa meeqo ma cadadna waa xisaaban marka inay ilmihii waqti ayaga ay iskontarooli karaan midda hadda aan ka dhexgelayo oo taas kamooda aan ku dhahay waxay ahayd maaragtay cunuga goormo cunug yahay midda aad ka hadlaysa barnaamij aad u ballaaran waa oo yacni topic kooni oo noqonaa yacni yaa cunug la dhigi karaa ilaan 40 jirka cunugaan dhahnaa 30 jirka cunugaan dhahnaa 20 jirka cunugaan dhahnaa 10 jirka cunugaan dhahnaa ama arrinta oo intaasoo generation oo isla degan hal guri taas waa maho arinta taasna way gelayaan ka wada haddii cunuga oo maka weynaada oo guriga ka tegaynin maka guursadaan ka wada oo guriga ka tegaynin goormo samaysanaa maxaa la yidhaahdaa nolol cusub goormo hataa ku dhiiranaa inuu shaqo oo tago ilaa hadduu gurigan joogo maloo bahan adi hooyaa tahay maho ma dhehaysid ama waalidaa tahay ma dhehaysid maxaa la yidhahdaa ijaar bixi free oo guriga ku degan yahay haddana markaa aada digsid wax saaratid haddana waalidaa tahay ma dhehaysid anile wax maxaa la yidhahda samaysanaa yar dad kalena oo kalinay mafahant marka hadduu jiif kugu haysto oona cunto kugu haysto ilmihii oo sii dhalina adiga cuntada u karinaysa hadduu baxan oo dhaho magaalada aada aadi sii haynaysid waa safra xataa adu ka warqabin ama way safri hooyaa hayso goorma weynaanaa marka qofkaas ma weynaanayo hooyadii barnaamij weyn waa kan oo xiise leh akhyaare waa dareemaysiin barnaamijkan inuu xiise leeyahay marka cunuga goormaa cunug dhihi karnaa ayay noqonaysaa waa idin salaameynaa marimana aaday u mahadsan tahay ilaahay ha ku xifdiyo ilaahay ha ku dhooro aqli iyo caafimaad iyo maaragtay cimri dheer iyo wax walbo ilaahay wanaagsan ha ku siiyo anigu waan kuu ducooyey hooyo way kuu ducooysay aabbaha way kuu ducooyey inta ku daawanaysan way kuusoo ducooyaan marka lislama heli kara intaas oo dhan qof nasiib lahaa helo marima taariikh weynay hooyo ay ku leedahay ilaahay ha u naxariisto marka maasha allah tabaaraka allah aan ka faa'iidaysano maskaxda ilaahay uuna siiyey waqtiga aan ka faa'iidaysano iska warqabista ilmaha iyo waalidka aaday muhiim u tahay in la isxiiseynayo aaday muhiim u tahay in la isu xiisayo aaday muhiim u tahay haddii cunugaadiyo guriga dhexdiisa jooga aa xiisaynin adiga waalid haddii waalidka ilmihiina uu ku xiisaynin oo dhibaato waa maaragtay oo baahi le isu keenayso haddiiba lacala ay jirta in hal miis wax lagu cunayo waalidiinta qaarkood miis hataa isugu miimidaad inta anaga aan isla sugnoo nidhaaho waqtiga cuntada oo kale waalid aan dhehaynaa jiro cunug kasta markuu baahi qabad keligiis oo cunto cunaayo si kala dheeraanshada leh ay badinaysaa marka insha allah aan soo dhaweyno ilmaha iyo waalidka kadibna qoysaska aan isu duceyno qeybka
qof walba meeshuu jooga ilaah ku ammaanayaal waa idin salaanay channelka subscribe noo saara share noo dhaha like noo saara insha allah commentiyada noo soo qora si fiican uga qayb qaata siday Maryamo sheegtayna gabagabadii gunaanudkii waaye oo maaragtay ilmihiina ka warqaba wixii markaas ay ku jiraan idinku caburinaynin dadka gameka maaragtay soo gado marka horeba waad soo gaday adoon garanaynin gameka haddii aad soo gadidaa khasaaraha ugu weyneed ama contractigii maaragtay cunug heshiiskii aad la gali laheed adoon u haynin qorsho haddii aad soo gadidna qaladkiisa kale leedahay kow intaadan soo gadin ka hor dadka hadda kadib soo gadi doono ka fikir maxaa qorshihiisa yahay aqoontiisa maaragtay goorta la isticmaalayo waalidiin waxaa jira hadda ka hor ila wadaageen haddii aan ka qaado cunug macnaa feeru ila duubana oo inuu ila dagaalamo rabaa soo bixi gameka haddii kaleento dagaala aan ku bixina marka dhibaato weyn waa taasoo kaleento insha allah cunug wax walbo aad siinaysid marka hore qorshe iyo maaragtay sabimus muxuu ahay Soomaali contract Ingiriis waa heshiis waa halka la qorto insha allah heshiiska hadii la jibiyo oo shaqeyn waayana ganaaxii in hor loo sii qorto badana ilmaha wixii hor u sii diyaarsadid waxa kula dhaqmi kartaa laakiin hadii aad soo gadidood nafsi sidoo ka xareysatid maxaa igu soo gadaa ku taal iyo waxa ma ogeyn ama inta soo saarahan isbuuc oo dheelay inta soo saacadood maalin kasta 5 saac 6 saac oo dheelay hal mar la dafeed maalmaha dhan buu dheelay maxaa iga daftay dafista markaa daftid hadana maxaa ii siinayna wahay shuruud la'aan soo bixinay hadana wixii aad ku qaadatin ma qeexin wixii aad ku soo celisina ma qeexin shoogaas soo ku jir cunug arintu waxay noqonaysaa marka hadii la iga dafan ha la iga dafad inta ila iga dafin oo haysana salaad soo tukada waxa akhris waa akhri inta ka qaada leed marka insha Allah barnaamijku si balbalaarna waa idin salaanay intaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bye bye